waxaad wakhtigaadii qayb ka mid ah gelisay barashada English, kalaas baad iska xaadirisay, waad akhriday, waad dhegaysatay, waad ku celcelisay. Sannado kadib waxaad la soo istaagtay su'aal ah I understand English but I can't speak it. English waan fahmaa laakiin kuma hadli karo. Taasi micnaheedu ma aha in Englishka uu adag yahay ama aan lagu hadli karin. Laakiin waxaa jiray 3 qalad aad adigu samaysay kuwaasoo dilay kalsoonidaadii ama ku hadalka Englishkaagii. Kadib markaan boqolaal arday language coach u noqday ama haga luuqadeed, kana caawiya xalinta qaldaadkii ay samayn jireen muddo aad u kooban oo 6 bilood ah kadib, Englishkoodii isla markiiba wuu isbedelay. Dib u soo ceshtay kalsoonidoodii, bilaabay ku hadalka Englishka, weliba si aysan xitaa ayaga filaynin. Qaladka koowaad, you think that English is academic subject. Arday badan baa waxay u haystaan Englishka inuu yahay sida maadooyinkii iskuulka la fahmi jiray, practice la'aanta ahaa, aan dib loo eegi jirin ee buugaagta meel la iska dhigi jiray. Xilliyada imtixaanaadka, intii macallinka muraajaceeyo ama dib ugu celiyo inta ugu muhiimsan ee la isleeyahay ama imtixaanku ku jiraan, macallin noo muraajacee ama noo revise gare la dhihi jiray. Imtixaanaad ku geli jirtay, kadibna buundooyin sarsare aad ka keeni jirtay. Halka Englishka uu yahay a practical skill u baahan gacan ku hayn, joogtayn maalinle ah iyo practice garayn. Intaasna ay u dheer yihiin fahamka guud ee luuqadda English in ay tahay practical skill.